waxaan ku sugannahay magaalada Johannesburg xafiiska Ilays TV Johannesburg waxaa halkan marti noogu ah gudoomiye ku-xigeenka Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeniya Dr. Maxamed Ismaaciil Cumar oo muddo kooban safar ku joogay waddanka South Africa gudoomiyuhu markii uu yimid waxa uu la wadaagay Ilays TV iyo Onaba ujeedada uu safarkiisu yahay ee uu ku yimid South Africa waxaan gudoomiyaha aan weydiinaynaa oo aan leenahay safarkii aad ku timid shirarkii abaabulkii aad gashay iyo socdaaladii aad gobolka ku dhaxmartay gobolada waddanka South Africa gudoomiye maxaa kaaga qabsoomay adigoo ku soo dhawaanaya xafiiska Ilays TV Johannesburg bismillahir rahmanir rahiim marka ugu horeeya Ilays waa TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadaalka faraha badan ee ugu jirtaan wacyigelinta shacabka geesiga ee halgamaaga ee Soomaalida Ogaadeniya waxaan halkan ku nimid wafdi ka kooban aniga oo gudoomiye xigeenka Jabhadda Wadaniga Xoreynta iyo hoggaanka arrimaha warfaafinta mudane Xasan macallin runtii waxaa naloo soo dhaweeyay si diiran oo aad iyo aad sidaan uu ka filaynay jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ee Koonfur Afrika waxaa aan la soconay inay xubno fara badan oo ay banaanka uga baxeen oo dibadejin ay dalal kale oo dibadaha ay ka heleen marka ma aan filaynin xubno inta leeg iyo jaaliyad inta leeg oo xoogga iyo isku duubnida leh inay ka jirto ilaa xadkaas laakiin la yaab ma ahayno maana yaabin oo awal hore dhaqan iyo u lahayd jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya South Africa ay u lahayd horumarka iyo ficil isku duubnida ficilka runtii waxaan la soo kulannay shirweynihii jaaliyadda oo ay maamulkoodii ku dhisayeen istiraatiijiyadooda soo socota sanada soo socotana ay ku dejinayeen ayaan la kulannay runtii aad iyo aad buu shirkaasu si fiican ugu dhacay fariintii aan ka wadnay halganka iyo Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeniya waan gaarsiinay oo si fiican bay jaaliyaduhu ugu qushuuceen waxaan ku wareegnay gobollo badan oo dhowra oo ay jaaliyaddu ka jirto iyadana sidaas oo kale aan looga soo dhaweeyay waxaan la kulannay intii aanu halkan joognay meediyaha dalka waanu la kulannay ilaa laba jaraa'id oo wax ka qoray halganka shacabka reer Ogaadeniya waa la kulannay waxaan noo ballansan inaanu la kulanno TV-ga South Africa inaanu la kulanno interview ay nala yeeshaan waxaa kaloo noo ballansan inaanu wasaaradda arrimaha dibadda la kulanno iyagana hadee markay nooga soo jawaabaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu halkaa la kulmo runtii si wuxuu u dhacay socdaalkanaganu socdaal wuxuu ahaa guuleed aad iyo aad baan noogu mabsuudnay midhihii ka dhashay iyo isfahamka ay jaaliyadii aanu kala war qaadanay talooyinkoodii aan qaadanay iyagana aanu maadartay la dardaaranay si fiican bay noogu qabsoontay aad baad mahadsantahay gudoomiye waa si wanaagsan waxaan aad u shaqaysanay inaanu wax kaa weydiino bal xaaladda maanta ay Itoobiya ku sugan tahay baxayaashii iyo yacni buuqii ka dhashay dhibaatadii iyo rafaadkii dadka la gaadhsiiyey ay dowladda Itoobiya ay ku soo rogtay xukun degdeg ah dadkii tan iyo intii xukunku dhacay maxaad kala wadaagi kartaa bulshada reer Ogaadeniya iyo caalamkaba waxa ka socda dalkii gumaysatada ahaa Itoobiya gumaysatada Itoobiya hal sano kacdoon dadweynihii Itoobiya waxay gumaysatay iyo waxay cadaadisaba muddo hal sano way kacdoonsanaadeen kacdoon xoog badan baa ka jira wax intii ay xukunka degdega soo rogeen wax iska dhimay ma jiro kacdoonkii wuu sii karaar qaadanayaa runtii waxa weeyaan kacdoonkaasu wuxuu burburiyay guud ahaanba taliskii Itoobiya iyo xukunkiisii magac ahaan baa hadda ka jira Addis Ababa dalka gudihii dalka dalweynihii waxaa haysto
shacabkii kacaamay ee ay oromadii iyo axmaaradu maanta ay maaragtay ugu xoog badan yihiin maadaama iyagu gobolladii ay xukunka gumaysiga saldhigiisa ahaa iyagu gobolladooda ay ahayd marka waxaa la odhan karayaa wax dawladda oo maanta ka jirto oo aan magac ahayn ma jiro Addis Ababa waxaa baaba'ay dhaqaalihii baa baaba'ay midnimadii baa baaba'day waxaa yani dalku hadda wuxuu meeshuu marayo yani weli ma jiro kacdoon sida xoog gaalahoo dawladdu burburiya yani tii ugu xoog badnayd baa hadda maanta ka socda waxaa hadda lala yaaban yahay runtii oo la isweydiinayaa sidee bay dawladuba magac ahaan xataa uga jiri karayaan Addis Ababa xaaladda ay maanta ay marayso shacabka reer Ogaadenya iyagoo awal horeba kaga horreeyay dadal shucuubtan kacday sidiisiiba iyaguna dagaalkoodii u sii xoojinayaan oo maalinba maalinta ka dambaysay sii karaar qaadanayaan cadowgii gumaystaha ahaa indhuhu isku sii qabsanayaan runtii aad baad gudoomiye ugu mahadsan tahay sida fiican aad su-aashaa uga jawaabtay waxaa kale oo intaa noo dheer mar haddii ay dawladdii iyo taliskii dawladda Itoobiya ay halkaas ka sii siibanayaan ay dalow dhowr ka sii dhacayaan waxa oo ay muuqato in shucuubtii oromada iyo shucuubtii xabashiduba ay muujinayaan inay ilaa hadda si adag ugu hawlgalayaan iyagoo aad moodo inay isku duuban yihiin shacbigeena reer Ogaadenya iyo shacbiga Soomaaliyeed ee guud ahaanba geeska Afrika maxaad u jeedin lahayd oo tala ah oo ay jooxa ahaan aad odhan lahaydeen yani marka ay halkaa marayso hilinka waxaa weeyaan shacabka Soomaalida Ogaadenya awal horeba waa dadaalayseen baan leeyahay runtii dadaalkiisii kordhiya oo isa sii daba raaciya gumaysiga dhiigyacabka ahee gacmaha dhiigga ale shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha nahay oo ay Itoobiya iyada qudheedu sidaas oo kale ay haysatay u diiday inay qarannimadoodii iyo gobonnimadoodii la soo noqdaan waxaan leenahay maanta fursad baad haysataan Itoobiya mar labaad inay idinku soo noolaanin Itoobiya waddankiina ka saara iyo dareenkeeda iyo wixii ay kaga tagtay jawaasiistii ay kaga tagtay waddankiina iyo maleeshiyaalkii waxaan leeyahay gumaysiga ha la isdaba raaciyo gumaysigu waxa weeyaan runtii shacabkii Itoobiya ayaa u guntado iyagaaba ku filan runtii ridideeda laakiin hadee waxa weeyaan waxaa maanta barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa inay Soomaaliya Itoobiya ka xorowdo waa inay Ogaadenya Itoobiya ka xorowdo shucuubta aanu saaxiibka nahay ee Oromay iyo muxuu ahaa shucuubta kale ay aad u cadaadiso waxaanu leenahay dhiirada oo gumaysiga maad aragtay u midooba isna daba raaciya aad iyo aad gudoomiye mar haddii aad aragtay sida ay tahay dawladda Itoobiya mar kale su-aasheeda dhinaca kale iyadoo ah dadka reer Ogaadenya iyo jaaliyadda South Africa ee aad la joogto iyo kuwa gudaha ku dhaqan iyo kuwa dibadda ay ku daawanayaan maanta arrinta aad u filayso ee aad leedahay yani dadka aad ku hadlayso maanta halka jeedinaysa ustaadii Johannesburg waxa weeye jaaliyadda South Africa waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu horeeya xagga halganka xoreynta shacabka dalka Ogaadenya waxaan leeyahay halkii ka sii wada waxa weeyaan haddii aad awal hore dadaalayseen inaad maanta sii laban laabtaan dadaalka midnimadiina iyo mintidnimadiinaba idinkoo adeegsanaya halku dhageennii ahaa midnimo mintid iyo isku tashi marka halgankeennu waxa weeyaan guusheenna iyo halgankeenna iyo koritaankeennuba wuxuu ku saabsan yahay in maad aragtay guulahaas laysu wada keenayo ee gobol walba iyo jaaliyad walba ay dhinaceeda ay ka qabanayso sidii aan horay u yidhi barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen sii laban laaba aad iyo aadna khayr iyo guul baan idiin rajaynayaa gudoomiye waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay waa anigoo Maxamed ah iyo Axbaab oo hogaanka warfaafinta ee jaaliyadda Soomaalida Ogaadenya ee Koonfur Afrika oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo